wafti baladan oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa maanta lagu soo dhaweeyay Buuhoodle. waftigan waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Cabdi Muusanur, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Buuhoodle Salabaan Cabdi Xuseen Salabaan Anjeex iyo mas'uuliyiin kale. qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle ayaana soo dhaweyn baladan u sameeyay, waxaana waftigan ku soo hakadeen deegaanka Qorlugud, halkaas oo waftigu kulamo kula soo qaatay wasiirka hogaaminayo waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan deegaankaasi. waxay soo mareen deegaanka waxaana markii dambe wasiirka loo soo galbeeyay gudaha magaalada Buuhoodle, waxaana galbinay gaadiid aad u fara badan iyo waliba gaadiidka dagaalka. soo dhaweynta wasiirka waxaa ka qayb ka ahaa gaadiidka dagaal oo aad u fara badan, gaar ahaan gaadiidka BM-ka loo yaqaano oo aan arkayay soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaadanayay. wasiirka ayaa markii dambe waxa uu kala hadlay Buuhoodle hooga loogu talagalay, waxaana halka ugu horeyn ka hadlay maayirka degmada Buuhoodle iyo gudoomiyaha gobolka Buuhoodle, waxaana ugu dambeyntii halkan ka hadlay wasiirka faafayn ka bixiyay ujeedadiisa uu yimid Buuhoodle. aad baan wasiirku soo dhaweynayna anigoo ku hadlay afkii golaha deegaanka degmada Buuhoodle maayirkii aad baan idin soo dhaweynayna dhammaan isimada ugaasha waxgaradka dhalinyarada ururada bulshada oo dhan. wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta iyo dhulka Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi oo annagu aan uga soo kamidnahay iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamaca Jeeg Cabtan sida wanaagsan ee ehelnimada ee quruxda badan ee aad ugu soo dhaweyseen. aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa, waxaanu leeyahay jazakumullahu khayr. xilligu waa xilli kulul, waxaynu u baahannahay inaynu nabadaynu qaadanay taanu jirno, inaynu noo adkaato, inaynu habsanka iyo dibudhaca ku yimi gobolkan ee runtii colaadu keenayna Somaliland kaga dambeeya aynu ka saarno. waxaanaynu kaga saaraynaa markaynu horumar u jeesano aynu colaada iyo ilowno sida ay maanta nabadda u tahay inaynu adkayno. qof kastaana inuu mas'uul noqdo halkiisa xil iska saaro daaduu doonaha ahaadee. aad iyo aad baa mahadsantihiin. assalaamu calaykum. dayda inay gobolkeenna nabadgelyadeena aynu maanta ku naaloonayno ay khalkhal geliso waa inaynu iska qabanno weeye, oo aynu ka hortagno weeye, oo aynaan wuxuu doonaya aynan la qaadanin. waxaan idinku adkaynaynaa nabadgelyada inaad haysaan oo aad si wanaagsan u haysaan oo nabadgelyada aad ku mintitaan, taasaynu aakhiriya adduunkaba ku liibaanayno. nabadgelyada ma ku mintidnaa kuma mintidno. reer Buuhoodle in tolo ayay lagu hawlgeliyo waxaan agtooda oo aan u dhoweyn oo nabadgelyadooda lagu jabiyo wax wanaagsan ma aha. reer Buuhoodlena waxay ku ogaan kartaa wixii ka shaara ka dhacay. ciddii maanta doonaysa ciidamo soo gura soo kacay tolaayay markaaba may jirin, maantana waxay u jirtaa ma jirto. reer Buuhoodle waxaan oran lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan, midaad deris ku haysataan, midaad sokeeyo ku haysataan iyo midaad shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraaraytaan baan oran lahaa. dowladda Puntland, dowladda Somaliland halkan inay wax fidna ka kiciso iyo inay wax dhiba ka geysato iyo inay dagaal meel la ku qaado diyaar uma aha. qabana mayso, falina mayso, taasina waa xaqiiq jirta. waxaan kaloo u sheegayaa dowladda Puntland oo xaqiiqa iminka waqtigeedii wuu sii dhammaanayaa in ay dagaal dadka dhiiggiisa ku bilaabaan si waqtigooda loogu kordhiyo. wax waxtara maaha, wax derisnimo maaha, wax dadka waxtaraya maaha. taana waxaan odhan lahaa walaaladayo in nin mikrafoon ka caytamay waxuma taro, nin mikrafoon ceeb ka sheegay waxuma taro, nin mikrafoon balaayo iyo dad in isku dira ka sheego waxuma tarto. waxaan odhan lahaa war Somaliland dagaal ay wadaa oo ay cid ku qaadaysaa, oo ay Puntland ku qaadaysaa, oo ay bilaabaysaa, oo ay horseed ka tahay ma jirto.